haatana Hargeysa. diyaarad 50 muhaajiriin ah oo saarnaa ayaa diyaaraddaasi islamarkaana ka soo qaaday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in shalay ay ku degtay magaalada Garowe kadib markii ay ku guuldareysatay in ogolaanshiyo degitaan ay ka hesho mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa sida idaacadda VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. diyaaraddan ayaa la sheegay inay maanta mar kale dib ugu duushay magaalada Hargeysa halkaas kadib markii loo ogolaaday inay soo degto. soo degitaanka maanta iyo dhacdadii shalay ayaa wariyaha Caashe Ibrahim Aadan ay ka wareysatay Cabdi Maxamed Rodal oo ah maareeyaha hay'adda duulista hawada iyo madaarada Somaliland. walaal horta iminka inamadii oo dhan waa la keenay diyaarad kala keentay oo hadda iminka ayakii baan dhex jooga. ya waa gartay marka waxa dhacday diyaaraddu markay meesha ku soo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka waxa la yaalo wax permission oo sidatayna ma jirto. waa gartay meel ay ka timid meel ay u socoto anagu raadaareeyo malihin ya marka dambigeeda ay ka ahayd diyaaradan permissionkii ma aha overflight-kii kii ay ku soo degi lahayd Hargeysa ayayna haysan permissionkii landing permission baa la yidhaa. marka horaanay isu soo sheegin inay soo socoto yani xitaa me way soo diraan flight planka oo wax la isku og yahay xitaa iminka diyaaradan soo qaaday waa regular flightska diyaaradaha soo maadarag beeleha block oo regularka flightska de commercialka caadiga ah ya 6 bilood iyaba siinaysaa charter aircraft bay ahayd. marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miya diyaarad aan inta badan Hargeysa imaan adeer charter flight bay ahayd ya marka iminka diyaaradda iminka soo degtay oceanic baa la yidhaha marka dembiga ayakaa lahaa iyo qoladan IOM-ka anaga dee markaa mana garan karra diyaaraddu waxay sito haddee ayaku waxay ku sheegaan mooyaane de anagu raadaar iyo dee ma haysano waxaan ku garanay iyo meelay ka timid markaa qaladkaa ayakaa lahaa. waa gartay laakiin kuwa kale joogtada u yimaada madaarada Hargeysa ama madaarka Hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sido? ma 6 bilood de way leeyihiin flightki markuu numberkiisa sheego waa flight number block permission baa la landing ya waa regular flight. waa gartay laakiinse kuwa charterkii de waa inay soo sheegaan wadankay ka register garaysan yihiin goortay imanayaan kartankan magaciisa de procedure raacaa jirta si aad u siiso degidda waktiga horteedba intayna soo kicinba 2 cisho horteed marka arrintu intaasay ku dhammayn. waa gartay laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo dega rabtee la diiday in xataa ay ka cabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin taa mid soo gaartay adeer waxaa jirta waxaan kuu sheegayaa diyaaraddu haddii ay emergency declare garayso procedure loo declare gareeyaana jira kolkan emergency uu jiro oo mayday la yidhaahdo mayday 3 goor ay diyaaraddu odhanayso xitaa diyaaradaha kalea laga fogeeyaa markaasi markaa airportka waa la soo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay laakiinse diyaaraddan waxaa markan dambe malaha waxa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayn diyaaraddani ayadaan procedure-kii raacin landing permission. waa gartay waxaad ii sheegtay hadda in xaqiiqadu waa intaa. waa gartay marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaraddaasi ay siday in maanta ama goor dhaweyd ay soo degeen marka imisay leeyihiin dhalinyarada way soo degeen waa 50 anigu iminka maanta iminka diyaaraddan hoos joogay iminkana meeshii VIP-ga lagu soo dhaweynayaa kolley media joogta mediadana waad ka arki doontaa ya xagee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan shalay Muqdisho ka yimaadeen laakiin hadda xagee ka yimaadeen Garowe oo shalay diyaaraddii wadda ay geysay tiiba geysay diyaaraddii wadayna waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday marka intaasuma warku haya walaalayaal waxaad ka arki doontaa walaal mediada laakiin soo warka saxi waa intaan ku siiyey.